Fiidiyowgan waxaad ku daawan doontaa waxqabadkii Dallada Waxbarashada Tayo ay ka qabatay magaalada Buurleye, iyadoo qaybo kala duwan aad arki doonto sida Lexi-Elbiga, qaadashada shoor-kurtiga, qaybihiisa tagsiga iyo bee-shoor-kurtiga, iyo weliba barashada luqadda Swedish-ka iyo isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed iyo qaabkii ay ula qabsan lahayd waddankan Sweden. Muuqaaladan waa muuqaallo xusuus ah oo kala duwan oo aad ku xasuusan karto waxqabadkii Dallada Waxbarashada Tayo ay ka qabatay magaalada Buurleye, waana run ahaantii waa mid aan Alle ugu mahadcelinayno iyo dhammaan ka qaybqaatayaashii iyo taageerayaashii Dallada Waxbarashada Tayo. Runtii waa wax aad iyo aad wax la xasuusan karo. Waa xusuus aad iyo aad u xasuusan kartiin markastana ayna soo booqdaan dadka u haya danaha iyo bulshada Soomaaliyeed ama doonaya inay fooraleysniyada u soo jeediyaan wax ku oolka ah. Barnaamijkan Dallada Waxbarashada Tayo oo xaruntiisu ay tahay Kolfishtigan TSA, halkaas oo iyo qaybaha Yakis, halkaas oo ay ku kulmaan dadka waaweyn iyo dadka yararba, iskuna dhaafsadaan cilmiga iyo aqoonta iyo waxbarashada, isla markaasna iyo fikradaha kala duwan ee bulshada wax u tari kara iyo horumarna gaarsiin kara dhalinyarada, haweenka iyo aqoon-yahanada intaba. Sidaa darteed waxaan leenahay qof kasta oo u haya bulshada arrimo muhiim ah wuxuu la soo xiriiri karaa maamulka Dallada Waxbarashada Tayo oo fadhigiisu tahay Buurleye. Website-keena Tayo Masam Studio Circle, Facebook.com Tayo ama Tayo Dallada Waxbarashada Tayo. Waxaad kala xiriiri kartaa Facebook-geena Tayo Masam Studio Circle. Sidoo kale waxaad kala xiriiri kartaa oo emailka ama fikradahaaga noogu soo diri kartaa Tayo Studio Circle@gmail.com. haddii aad doonayso inaad na soo booqatana waxaad naga soo booqan kartaa goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada Buurleye. Run ahaantii waa wax taariikh leh. Muuqaalada aad u jeedaan waana wax aad iyo aad xusuus fiican u leh, dhiirigelin u geysan kara bulshada goobtaas soo booqatay oo markasta iyagoo ku qanacsan ka taga goobtaasi. sababtoo ma qiyaasi karno saacadaha meeshaas la joogaa waxa ay noqdaan saacado aad iyo aad ay dadku ku faa'iideystaan, bayna ku faraxsan yihiin imaatinka markaas ay imaanayaan goobtaasi.